وعنا wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka Hubal News qodobada wararka aad daawan doontaan waxaa kamid ah baryahan waatay hore loo sheegay inaan xanuunsanahay waa run cudurkaas COVID-19 laga helay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo warbixin ka soo saaray xaaladiisa caafimaad iyo arrimo kale oo xasaasi ah dhibaatooyin adagna oo haysta safaaradaha Soomaaliya ee caalamkana shaaca ayaa laga qaaday xujeedii Somaliland ee sanadkan oo xeelad cusub ku dhoofeen kadib diidmadii ay kala kulmeen xukuumadooda iyo qaybta dambe warkeen oo aad ku daawan doontaan Sacuudiga oo shaaciyay bilowga bisha Dulxaj ee Carafa iyo waliba maalinta Ciidul Adha qodobadaad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door corona warka janalka Hubal News fadlan daawade haddaad nagu cusub tahay ku soo biro ka mid noqo saaxiibada hela wararka joogtada aan ku baahno janalkan aragtidiina halkaas nagu reebo muuqaalkana si share gareeyo oo gaarsiiya asxaabtiina laagtiinana waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu weheliyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa u jeediyay shacabka Soomaaliyeed fariin ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa ugu horeen ummadda Soomaaliyeed uga mahadceliyay ducada iyo dareenka ay u muujiyeen muddadii uu hoggaansanaa habraaca iyo talooyinka bahda caafimaadka ee COVID-19 madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaanada caafimaad ee la xiriira COVID ee laga qaaday ay muujinayaan in laga waayay sidaas awgeedna uu dib u fariisan doono xafiiska si uu u dardargeliyo shaqada qaranka muddo 5 maalmood ah oo aan u hoggaansanaa habraacyada iyo talooyinka bahda caafimaadka ee la xiriira COVID-19 waxaan maray 2 maalmood oo isku xigta baaritaankii ugu dambeeyay kaas oo natiijadiisu ay noqotay in la iga waayo COVID-19 sidaas awgeedna waxaan dib ugu howlgalayaa xafiiska si aan u sii dardargeliyo shaqadii qaran ee aad ii wakiilateen ayuu yiri madaxweyne Xasan sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambaliyay munaasabada toddobaadka xorriyadda dalkeena wuxuuna ku booriyay in ay dhaxda u xirtaan sidii ay u samata bixin lahaayeen dadkeena dhibaataysan oo ay abaaru saameeyeen waxaan mar kale ugu hambaliyanayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed toddobaadka xorriyadda oo aan ku guda jirno anigoo ka codsanaya in ay iscaawiyaan si gaar ahna u xoojiyaan gacansiinta iyo taakuleenta dadkeena ku dhibaataysan abaaraha ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweynaha ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambaliyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamza Cabdi Barre isagoona ugu hambaliyay kalsoonida uu ka helay baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo inuu la wareegay xilka xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka waxayna wadajir u kormeereen madaxtooyada qaranka gaar ahaan qeybaha jimicsiga iyo beeraha geesta kalena dhibaatooyin adag ayaa haysta safaaradaha Soomaaliya haddaba shaaca ayaa laga qaaday dhibaatooyinkaas xildhibaanad Khadiijo Maxamed Al-Maqsuumi oo hore u ahayd safiirka Soomaaliya ee Pakistan ayaa markii ugu horeysay ishaacisay in safaaradaha dibadda ee Soomaaliya ay wajahayaan dhibaatooyin ay ku ka tahay dhaqaale xumi baasan xildhibaanada ayaa sheegtay in dhaqaalaha miisaaniyadda ugu jira safaaradaha dibadda ee Soomaaliya aysan sida ay tahay u gaarin iyada oo wasiirka ka dalbatay kulankii baarlamaanka inuu cadeeyo sababaha ay u fuli weyday arrinkaas safaaradaha culayska haysta waa mid la dareemi karo oo intaasi sanadood ay ku jiraan waxaan rabaa in aad dareentaan safaaradaha wadamada ajnabiga jooga ee lacagtaas soo gelin daruufo ay ku noolaan karaan ayay tiri haddii aan la sii karin lacagtaas waa in wasiir u cadeysaa baarlamaanka safaaradaha iyo madaxweynaha arrimahaasi dhibaatada tagan dhinaca kale xildhibaanad Khadiijo ayaa dalbatay in wasiirka maaliyadda uu 6 bilood hal mar hor yimaado baarlamaanka si loo kor joogteeyo in sideeda ay u fusho miisaaniyadda ay ansixiyaan baarlamaanka wasaaradda maaliyadda waxay u baahan tahay in 6 bilood kasta in lala hadlo sidii wax u qabsadeen iyo sida wax loo bixiyay si loo ogaado oo halkan aad keentaan 6 bilood kasta ayay tiri ugu dambeyntiina waxay dalbatay in guddi loo saaro si ay ula socdaan culayska haysta wasaaradaha dowladda federaalka iyo in sidii loogu talagalay u gaaraan dhaqaalaha ugu jira miisaaniyadda dalka
halka dowladda nagala socotaan waa Ubal News. Xujeedii Somaliland ee sanadkan xeelad cusub ayay ku dhoofeen kadib diidmadii ay kala kulmeen xukuumadooda. Xujeedii sanadkan ee Somaliland ayaa markii ugu horeysay ka dhoofeen garoomada magaalooyinka Jigjiga iyo Garowe sida uu ogaaday Ubal News. Xujeedan ayaana ka safray gudaha Somaliland maadaama ay xukuumaddu ka biyo diiday tiradii loo qoondeeyay ee xajka sanadkan ayaga oo go'aan ku gaareen haddii aan wax laga bedelin aysan dadkeedana soo xaji doonin. horaanta bishan ayay ahayd markii ay xukuumadda Somaliland si adag uga hortimid tirada ay dowladda federaalka Soomaaliya u qorsheysay inay ka soo xajiyaan deegaanadeeda taas oo dhameed 350 qof. shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajku waxa ay si buuxda u taageereen go'aanka xukuumadda ah inaysan siinaba suurtagal u ahayn oo aan la aqbali karin tiradaasi kooban ayaa lagu yiri bayaankoodii bishan ka soo baxay kulan ay yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Somaliland culummada iyo qaar ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka. sidoo kale waxaa xilligaasi bayaankaasi lagu yiri haddii arrintan si degdeg ah xal looga gaari waayo waxa ay keeni doontaa in dadkeedu aanan xajin sanadkan. Somaliland ayaana ku dooday in arrimaha xajka ay siyaasadeysay dowladda federaalka inkastoo ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu ay ku dooday in si wanaagsan loo maamulay qaybinta qoondada ee Soomaaliya ka heshay dowladda Sacuudiga. si kastaba xujeedii Somaliland ee sanadkan ayaana iskooda u go'aansadeen inay ka dhoofaan deegaano kale oo ay u galeen safarada dheer taas oo ay horseed u tahay cadaadiska xukuumadda iyo xifaaltanka kala dhaxeeya dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya. waagaagi daawadayaal imikana waxaanu eegaynaa Sacuudigu waxa ay shaaciyeen bilowga bisha Dulxaj ee Carafa iyo maalinta Ciidul Adha. dowladda dalka Sacuudiga ayaa shaacisay in la arkay bisha Dulxaj ee Carafa iyo maalinta ay ku beegan tahay munaasabada Ciidul Adha ee sanadkan. bisha Carafa ayaa la sheegay in laga arkay xalay goobta loo yaqaano tamirka ee dalka Sacuudiga sidaasina ay maalinta Carafo ay ku beegan tahay 8 bisha Julaayo oo maalin Jimco ah halka maalinta koowaad ee Ciidul Adha ay tahay Sabti 9 Julaayo 2022. dhinaca kale dalalka Islaamka ayaana bilaabeen inay ku dhawaaqaan in la arkay bisha Dulxaj iyo in kale iyo maalinta ay bilaabanayso Ciidul Adha. dalalka Malaysia, Indonesia, Brunei ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqeen in la arkin bisha Dulxaj ee Carafa iyadoona dalalkaasi ay Ciidul Adha u bilaaban doonto Axad 10 Julaayo 2022. dalalka Islaamka ee Carabta ayaana inta badan Sacuudiga ku raaca dhalashada bisha Dulxaj iyo Ramadaan halka dalal kalena ay si gaar ah u maamushaan aragtida bilahaasi. guud ahaan daawadayaal nageynta warkii waad kala socoteen janalka Ubal News fadlan daawada hadda nagu cusubtaan nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada helo wararkan ku baahina janalkan aragtidiina halkaas nagu reeba muuqaalkana si share gareeya laagtiina waa inoo muhiim waana ku mahadsantiin daawashadii la socodka warka janalka Ubal News.